wasiirada sharafta badan iyo gudoomiyaha iyo taliyaha iyo dhammaan bahda warbaahinta waa salaamantihiin. marka hore waxaan ku bilaabaynaa maanta waxaa dhacay in nin argagixisada ka mid ah oo inta jaaka soo hubeeyay oo ku tuuray ciidanka booliska Soomaaliyeed sarkaal ka mid ah ku dhaawacmay. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu caafimaad siiyo. asagiina ninkiina waa baxsaday oo markuu jaakada tuuray waa la qabtay. marka ilaahay sarkaalkaas caafimaad ha siiyo. waxay ka mid tahay khataraha cusub oo nagu soo kordhay in qof inta jaakad soo xirto oo ku dhex tuuro dadka uu ka cararo, waana wax u baahan in laga qaato feejignaan cusub. taas markaan ka soo gudbo, sida aad ka warqabtaan, dawladdu markii ay lahayd isu soo baxa iyo isu imaadka faraha badan waa in la joojiyo oo la yareeyo oo laga bilaabo golihii wasiirada in lagu qabto Zoom. waxaa lagu dhisay qiimeyn la sameeyey oo xag caafimaad u badan iyo xag amni intaba. qiimeyntaas la sameeyey oo aad loo soo daraaseeyey waqtina qaadatay lagana wada fariistay ayaa lagu saleeyey in isu soo baxyada iyo isu imaadyada la joojiyo, wixii aan laga maarminna aad loo yareeyo. qiimeyntaas ayada ah wax ka dambeeya ma jiraan, sideedii bay u taagan tahay. weliba waxaa dheeraad ah in uu soo kordhay khatarta caafimaad soo korortay oo sida aad ka warqabtiin dhammaantiin warbaahintu ka warqabto dhimashadii coronavirus oo soo korinayay ee aad iyo aad u soo badatay oo wasaaradda caafimaadka iyo madaxda guud ahaan xukuumaddu habeen maalin aysan nasan oo lagu mashquulshan yahay sidii dadka loo badbaadin lahaa. waa idinka maqlaya mar walbaba qaylada ambalaasku inay habeen maalin taagantahay. taasi waxay nagu sii adkaynaysaa marka in la sii yareeyo isu imaadka, in la sii yareeyo wax kasta oo dadka isu keeni kara si khatarta caafimaadku ay u yaraato. midda amni ee aan maanta ka hadlayna ee qofka dadka jaakada tuurayana ayaduna waa dhib nagu soo kordhay oo nagu sii dhiirigelinaya aanan dhihi karin bulshada Soomaaliyeed meel hees ugu timaado, waayo mas'uuliyad baa nasaaran. mas'uuliyadda saaranne waxaan u walwalaynaa sida waalidku u walwalo carruurtiisa u walwalo. ninka mas'uulka ah bulshada dhan ayuu waalid u yahay. sida waalidku u walwalo carruurtiisa oo khatar kasta ama ha muuqato ama ha soo socoto ama ha filo oo uga hortegayo oo waxa ugu badan oo dadaal u bixinayo ayaa looga baahan yahay dawladdu inay intaas oo kala bixiso. waxaa dhici karta dadka kale oo mas'uuliyaddu saarayn inaysan saa u fiirin, inaysan saa u arag oo ay ayagu u arkaan dana ay ayagu leeyihiin oo gaar ah oo u muuqda inay ayagu raadsadaan hadhowna mas'uuliyadda anaga nagu soo celiyaan. sida aad ka warqabtaan banaanbax guud ahaan waa la joojiyey, ama ha noqdo mid dawladda lagu taageersan yahay ama ha noqdo mid looga soo horjeedo. banaanbaxna sideeda dawladduna waa soo saari kartaa, dadka mucaaradkana waa soo saari karaan. wax weyn ma aha in dawladdu soo saarto ama mucaaradku, laakiin kulligood waa sharci darro. ama dawladda ha lagu taageero ama ha looga soo horjeedo, banaanbax oo dhan waa sharci darro. ciddii samaysane hadday ayadaa isxilqaanto maahay dawladdu uma dirin, mana ogola. gaar ahaan magaalada caasimaddu waa ka sii duwan tahay gobollada. caasimadda waxaa jooga mas'uuliyiinta dhammayd, waxaa jooga dawladdii, waxaa jooga safaaradihii, hubka u badan baa yaalla. mudaaharaad hub wata oo dad hubaysan wataan na sideedaba lama ogolaa karo. haddii ay dhacayso arrintaasi qiimeyn kale iyo cudurkoo naga yaraada iyo dhibaatadoo yaraata iyo arrinta amniyoo yaraata iyo qiimeyn kale unbay ku imaan kartaa. go'aanku waa sidiisii. qodobka kale wuxuu yahay dad waxaa jira isxilqaamay sidaad ka ogtihiin baaqi bare ministerku uu soo jeediyey maalinta Jimcaha oo uu ku baaqa wada hadal inuu furan yahay. cid walba in lala hadlo inay furan tahay, cid walba oo wanaag doona wax kasta la iska afgarto. baaqaas bare ministerku soo jeediyey sidiisii u taagan yahay. saacadan iyo saakay iyo xalay iyo habeen horena bare ministerka iyo wasiirada iyo intii kale oo mas'uuliyiin waxay ku wada jireen in la is afgarto oo laga wada hadlo waxa taagan. welina waa socotaa. cid albaabkaas waa furan yahay sida bare ministerku uu baaqo u furan yahay. waa haddeerta saacadaha aan ku jirnana wada hadalku waa socdaa. waana wada hadal see wax lagu wanaajiyaa, see wax lagu toosiyaa ma aha wax go'aankii dawladda wax looga bedelaa maaha. go'aanka dawladdu go'aan iskama qaadan karto haddaan daraaso iyo qiimeyn aan wax lagu soo dhisin. marka aad iyo aad u mahadsantihiin dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan. waxaan ugu baaqaynaa
xilli waxaan ku jirnaa warbaahinta cid walba ay ku gaarsiin karto fariinta ay wado maanta warka hadda aanu anjeedinayo mudaaharaad uma baahni mudaaharaad warbaahintiina anaa ku filan inaad gaarsiisaan malaayiin Soomaaliyeed inaad gaarsiisaan intaana iga filan uma baahni soo bax inaan sameeyo waxaan ugu baaqaynaa marka guud ahaan dawladda iyo dadka kale dawladda ku jirna oo aan dawladda ka tirsanaynba inay adeegsadaan warbaahintan hadda waxaan arkaynaa 40 kaamira ay hortaagan 40 kaamira waxay ku filan yihiin 5 qaaradood wixii fariin oo jira inay gaarsiiyaan wax baahiyo loo qabo maanta in dad isu keeno oo aan ila aniga dad isu ka imaada si aan u hadlo haba yaraatee ma jiraan dadka aan u baahana waa kaamirooyinkan kaliya kaamirooyinkan bisan u baahana ayagaasa warkii gaarsiin kara meel kasta waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ugu baaqayaa guud ahaan dawladda aan oo ka bilaabay mas'uuliyiinta dawladdan ka bilaabaya kuwa kale dawladda ka tirsan ka bilaabaya isu soo bax lama ogola qofkii war qaba qofkii fariin qaba caburin ma jirto waa furan tahay wax caburin leeyahay ma jiraan wasaaradda amniga oo aanu mas'uul ka ahay haddii ay jirto qof la caburiyo hadli weyda waa noo sheegi kartaa ma jirto caburin warkiina ku gaarsiiyo warbaahintan sharafta badan meel walba iga gaarsiinaya aad iyo aad u maasantiin arrinta shirka jirayd midda koobaad amniga qofka istaafriya maanta jaakada wateen fakaday sidee waa shaaka ku cusub dadka Soomaalida amniga marka laga hadlayo qof jaakada wato jaakad tuura kadibna uu baxsado see ku dhacday xogta badalka la wadaag midda labaad wasiir muqaarad ku banaanbaxo laamiyeen horey u laamiyeen dhibaato ka dhalatay ma jirto meel wada kale looga bixi karo xaaladdan adag ee dadka Soomaalidu ay aad uga walaacsan yihiin oo haysan waa maasantaa horta birka kooba ninka jaakada inuu tuuro go'aankeeda asaas kale asagaa tuuray laakiin sida inoo sheegeen oo taliib hadda la taagan yahay waa la soo qabtay waana xiran yahay taas horta waa taas dawladda mas'uuliyadeedu waxa waaye inay ka hortagto wixii dhibaato keenaya haddii se ay dhacdo in dhibaatadii qofkii ilaa adiga haddii qofka qofku dharbaaxada boolisku siima ogeyn inuu ku dharbaaxayo qofku siima ogeyn laakiin markuu ku dharbaaxo la rabaa inuu kaa qabto marka shaqadoodu waa qabsadeen waana ku ammaanan yihiin waana mahadsan yihiin booliska iyo nabad sugidda iyo militariguna waa kuwa aan habeen iyo maalin ku jiifno oo shaqada ugu sharaf badan uguna wanaagsan haya oo dhammaanteen naga karaama badan naga sharaf badan waa inaan ku mahadinnaa waa inaan ku ducaynaa waa inaan ogaanaa inay u taagan yihiin nabadeenna habeen iyo maalin idinkoo warbaahintana waxaa laydinka rabaa waddanka dhismihiisa tiiraad ka tihiin muhiima waa inaad wax bulshada anfacaya oo dalkeena dhisaya oo dib u celinayn oo bulshadu u wanaagsan inaad ka shaqaysaan haddii kale warbaahintu waxay isu bedelaysaa haddaysan taa ka shaqayn wax ka dhinac kale aadaysaa waana ku kalsoonnaa 100% warbaahintana saaxiib aan la nahay dawladduna waa la saaxiib waadna ogtihiin bare minister Roble inuu 5 wasiir oo ka tirsan warbaahinta inuu sameeyo taas waa qodobka labaad banaanbixi dawladdu qiimeyn iyo daraasay ku dhista go'aankeeda go'aankaas wax iska bedel ma jiraan haddii qiimeyn dambe dib loogu noqdo haddii dawladdu ay qiimeyn kala ku noqoto si kastaba ha ahaato ama wada hadalka ku timaado ama caafimaadka la qiimeeyo iyo amniga noqoto waa ka hadli doonaa laakiin warku waa warkii hore